shan xasbadeed oo soo weeraray dad iskugu jiro kalluumaystayaal iyo youtuber iska dalxiisa. Number 5. xeebtan waxay ku taalaa magaalada California. yarkan waa yar youtuber ah, sidoo asiga noo sheegay halkan wuxuu ku yimaaday inuu ku dalxiiso waqtigiisa ku qaato. kadib maxaa dhacay? sida u jeedaan dagaalka meel walba ku socdaa. yarku waa uu dadaalaya balse xasbadeedka ma ka liito. mar haddii dhinac laga waabiyo dhinac kale ayuu ka soo weeraray. markaan wiilku waa uu daalay oo tabar baa iskeentay, halka xasbadeedka asiga naftarkiisa uu daalay oo fakadkii badnaa waa uu joojiyay. meeshii waxaa ku quustay xasbadeedkii oo laga adkaaday. wiilkan hadda waxay raacday guusha, sidaas baa lagu yiri xasbadeedka goodbye. Number 4. qoladan waa qollo badda ka dhex shaqeysa oo qalabkii badda ayay sitaan. xasbadeedkan wax bay ku dhufteen oo xanuunsanaya, xarigan ayay ku jiijiidayaan. xasbadeedka waxaa ka dambatay xanuunka, wuxuu rabaa xarig inuu ka baxsado. wuxuu arkay laba nin oo bir ku jirta, birtaas ayuu ku soo weeraray oo inuu waxyeelay ayuu doonay. xayawaankan waxaa lagu tiriyaa xayawaanada aan waxba hilmaamin. wax allaalay waxaa ku dhufato waa kii ka aarsada wixii aad ku dhufatay. Number 3. waa maalin axad ah. sida ognahay maalinta axadda gaalada waxay u tahay maalin free ah, wax allaalay wixii rabaan qabsan karaan. yarkan waa uu soo baxay, xeebtan buu yimid, wuxuu soo doontay inuu malaay gaato oo aana kalluumaysato. meeshii uu malaay ka sugayay, bal muxuu qabtay aan aragno. I'm gonna shoot you. Try to get vertical on him so he doesn't cut me off with his tail. wuxuu isticmaalayaa awood midii ugu dambeysay. waxaanu hadda u soo jiidayay ma ahan malaay ee waa xasbadeed aad iyo aad u weyn. Fighting sea monsters. God dang, this guy is pulling. Gotta sit down. I came for a fight. That's what I got. wuu yaabay. waxaan saan u xoogan wuu garan waayay wuxuu yahay. kaamirada hoos geliyay, wuxuu rabay inuu soo arko, balse waa xasbadeed aad u weyn. There's nothing better than getting a workout on a kayak. labadooda ma ahan kuwa iska warhaya. wiilkan wuxuu rabaa xasbadeedka inuu nolol ku qabto. xasbadeedkan wuxuu rabaa wiilkan inuu ka baxsado, balse meesha waxaa ku awood badan xasbadeedka. Took a bite out of my kayak. wiilku wuxuu ogaaday xasbadeedkan feeraha weyn leh in tabar loo haynin. wuxuu isku dayay inuu bannaanka u baxo, bahashiisu watay, bannaankuna aaday si uu naftiisa u badbaadsado. Number 2. sidaa ognahay badda hoosteeda waxaa ku jira waxyaabo aad iyo aad muhiim u ah, dadka wax u taraayo iyo waddanka ay ku taalo wax u taraayo. qoladan waa qollo badda hoosteeda waxyaabaha muhiimka ka baaraan. ayagoo wax baarayaan ayay la kulmeen xasbadeedkan aad iyo aad u weyn. marna way la ciyaarayaan, marna way iska difaacayaan. xasbadeedka uu yaaban yahay. badda wuu ku jiri jiray, balse waxyaabahan caban muusan arki jirin. kaamir in laga duubo, in bir lagu soo taagtaagay, waxaas muusan arki jirin.
ugu dambeyn naxasbadeedka waxaan uu bagi waayay waxay yihiin uu garan waayay wuxuu isku dayay inuusan ka dheeraado asigoo oo ku dadaalay naftiisa in la garaafeen. Number 1 xeebtan waxay ku taalaa waddanka Australia. Yarkan waa yar kalluumaysato asigii saaxiibadiisa halkan waxay u yimaadeen inay malaay dabtaan balse xariga malaayga waxa uu soo galay naxasbadeed runtii aad iyo aad baari u ah aanan waxba garaafeenin sidoo naxasbadeedka baari u yahay waxa baari u ah ninka malaayga dabanayo. Keep reeling. Alrighty guys, I'm walking down the beach leaving Brett to fight this thing. But we've just seen a shadow. Unreal. That Wrap it around your hand. is a mammoth bull shark actually. Holy waa kan naxasbadeedka xariga marka lagu soo jiiday ma iska waalin tartiib xarigoo soo raacay ninka hoostiisa ayuu yimaaday asigoo wax dhaqdhaqaaqa aan sameeynin. We will bring this guy in a bit shallower, but that's only to get the hook out. Beautiful creature. ninka wuxuu sameeyay xariga uu ku soo jiiday oo ka furay dan badii ayuu dib ugu celiyay asigoo si qurux badan u sii sagootiyay. Time to go home, big girl. Yep, there she goes. See you later, mate. naxasbadeedka halkaas ayuu dabaashiisa ka sii watay waana la sii daayay si uu sii dabaasho. yarkan kalluumaysatada ahana runtii wax wanaagsan ayuu sameeyay.